maalmahan oo dhan waxaa la maqlay warbaahinta noocyada kala duwan ka socday muran ka taagnaa dirayska iskuullada. muranka noocaasiya markaan dhageystay badanaaba wuxuu ku saabsan yahay qadiyadda xijaabka hablaha waaweyn oo laga dhigay maracad. in badan oo ka mid ah hablaha hadlay iyo maamulayaasha qaarkood oo aan arrintaa wax ka weydiiyey iyo dumarka yaqaana dharka cad ee maanta yaalla waddankeena ile waaqica markaa taagan baa wax lagu salaynayaa doodoodu waxay ku saabsan tahay ma laha shuruudihii xijaabka iyo asturnaantii ilaahay subxaana wa tacaala uu waajibiyey. qolooyinka wasaaradda u hadlayaana waxay ku doodayaan inay maradaasi tahay maro fiican hablahana xijaab u noqon karta waxaanay u sheegayaan tilmaamo fiican. dooda noocaasi ayaa socota. xijaabku waa arrin sharci ah oo diini ah. ilaahay baa kitaabkiisa ku sheego aayado qur'aana baa lagu soo dejiyey oo ku jira suuratu nuur iyo suuratu laxzaab. nebiguna axaadiis tiro badan buu kaga hadlay. waxaana loo yeelay shuruud iyo sifaat maradaa gabadhu marka gurigeeda ay ka baxaysa ay xidhanaysa jilbaabka la idhaahdo. shuruuddaa haddii laga helo jilbaabkii ilaahay sharciyey waajibiyey buu noqonaya. haddii laga waayana maradaasi jilbaab noqon mayso. inay hablaha cid u xidho dowlad ha noqoto ama dadweyne ama waalid ama maamule iskuulla ama iyaguba inay xidhaanna uma banaana oo wax ilaahay subxaana wa tacaala amarkiisii khilaafsan. mar hadday arrintu saa tahay waajibku waxa weeye inaan la murminuun oo aan qolaba qolada kale aanay uga jawaabin warbaahinta. mar hadday arrintu tahay arrin diinta iyo shareecada xidhiir la leh waajibku waa in culimada loo celiyo. ilaahay baa yihi fasaluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun. culimadu hadday fatwoodana ay yidhaahdaan maradaa la ysku haystaa waa xijaab sharci ah oo hablaha asturaya marka waa in la fasaxo. iyagaa mas-uuliyaddeeda leh. hadday yidhaahdaan maaha jilbaabkii sharciga oo shuruuddii ma lahana waajibku waa in laga tago oo ilaahay sababtu u leeyahy wax weydiiya waa in waxa ay ku jawaabaan la qaato oo lagu camal falo. waynu ognahay walaalayaal halka arrinkeenu uu ka soo bilaabmay. anigu iskuul waan dhigan jiray intayna waddanka ka qaxin. habluhu say ahaan jireen waynu ognahay. surwaal bay xidhan jireen shaar gacmo dheeraa inanta nala galaaska hadday soo xidhato raggii maqaska kaga jari jiray maanta hargeysay joogaan qaar badanna ilaahay baa soo hanuuniyey. surwaal ku dheggan bay habluhu soo xidhan jireen. qaawani caadiya buu arrinku ahaa. ilaahay baa xaalkaasi inaga bedelay inagoon weliba tacab fara badan aan gelin oo inoogu nicmeeye hablaheennu kuwa macaahidda dhiganaya kuwa madarasadaha qur-aanka dhiganaya kuwa iskuullada barayfadkaa dhiganaya kuwa iskuullada dowladda dhiganaya inay noo noqdaan hablo asturan oo dadka muslimiinta ee caalamka jooga ay nagu majeertaan in badan oo ka midina ay nagu ammaanaan. cadowga ilaahayna uu ka xumaado oo arrinta noocaasiya ciil uu ka qabto waayo wuxuu shaydaanku jecel yahay buu cadowga ilaahay u jeceliyey oo ah qaawanaanta. waajibku waa inaynu xoojinno nicmada ilaahay uu ina siiyey oo dib aynaan uga noqon. arrintaa culimada ha loo celiyo. iyagaa maryahaas eegaya. iyagaa cidda ay wax kaga xidhmaan arrinka noocaasiya wax ka weydiinaya. hadday tahay dumarka arrimaha noocaasiya xogogaalka u ah iyo hablaha ka hadlaaya iyo ciddii kale arrintaasi khibrad u laba. amarka ilaahay in la qaato ayaa waajiba. arrintaana murankeeda saasi lagu afjaro